السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أصحاب تقاليقة ولكن أبو ناجي أحمد علمي ومد الصومالي أورجيني إنه إلهي دبعت كسارو وحا عاود رينكيغا آد أطابتي دبعت لوغي سنة قبر ولا شيء أو كلا صومالية لكفصانيو موغال لغا سيدوبيو صومالية نلوش ميشو أغو حماد أيان مرينا إنان قبله ولا لهينا كفصانو هدنا موغال لغا سيدوبنو waxay ila tahay qof waliba oo dareen Soomaalinimo ku jiro inuu u damqanayo waxaan idin leeyahay gabdhaheenu waa dhalad dhameys weey gabigood hidahoodi kama dhumin dhaclihi iyo gareyski iyo guntiinadii ma ay dhigan dhaxalkii awoowiye dhaqankoodi kama tagin kuwa dhoof ku baxay ee dhul shisheeye naga jira dhowr sanaan qurxoon iyo aqoon dhirisi mooyee cid dhaliisha lama arag dhowr sanaan qurxoon iyo aqoon dhirisi mooyee cid dhaliisha lama arag dhulka hooyo kuwa jira labaatan iyo dhowr sano dhibaatadii dhacaysaba dhaxda sow umay xiran kumay qaadin dhabarkoosoo dhallaan kumay korin xoola nagama ay dhicin dhiig sukeeyo may gelin iyagoon wax noo dhibin ayaa qaar la dhabar jaray kufsi lagu dhammeeyo looga dheelay sharaftii dhowr kaleeta dhalinyaro sow dhuumashaal iyo meher gaaban uma dhigin kufsi lagu dhammeeyo looga dheelay sharaftii kufsi lagu dhammeeyo looga dheelay sharaftii dhowr kaleeta dhalinyaro sow dhuumashaal iyo meher gaaban uma dhigin kolkay dhowr ayaa amood sariir kula dhacleeyaan gabarnimada dhaafshaan dhag furrin kumaysiin sow magacyo dhowrana gabdhaheena kuma dhicin dhugmalaawayaasha dhibaatada intaa la eg dhaxalsiiyey dumarkii dhimirkii xiskoodii iyo qalbigooda dhinacyada dhooba maa ka fuushoo dhaqdhaqaaq miyuu gabay mid ka dhaarsan weli ee dhabaha ku sii jira horta asaga ayaa dhalay ma dufaan dhacaysaa dharaar qura mar laga helay dhulka muu ka soo baxay sow hooya may dhalin dhabta sow kumay qaban dharab sow kumay hugin caanaheedii muu dhamin gabar sow lamay dhalan oo miyuusan dhali rabin misna uu dhex rabin wixii dhacay dhaceenee wixii dhiman alloo khayr dhalinteena gabigeed rabowsama ku dhaataan waxaan idin sheegayaa Soomaaliyeed dhibaatada loo geysanayay gabdhaha Soomaaliyeed waxaan la hadlayaa mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ee maamulada Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed dhammaan qof waliba oo mas'uul ah waxaad ogaataa shacabka mas'uulka ah ka tahay ee goobta aad mas'uul ka tahay ka talisid ku hoos nool dhibaatooyinka loo geystay in lagu weydiinayo lagu xisaabtamayo maalinta aakhiro iyo maalin adduunka in lagu xisaabtamayo qof waliba oo maanta mas'uul ah ee maanta meel uu ka talinaya gabar Soomaaliyeed ama qof hooyo Soomaaliyeed lagu kufsanayo wallahi waxa ku saaran xaq weyn baa ku saaran waxaan idin sheegayaa dadka geystay dhalinyarada geysatay kufsiga in si degdeg ah cadaalada loo geeyo si degdeg ah meesha ay mudan yihiin sharciga islaamka iyo dastuurka Soomaaliyeed ka qabo ay mudan yihiin in la marsiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inaad ka dhiidhisaan kufsiga dhibaateynta gabdhaha Soomaaliyeed qof waliba oo dareen Soomaalinimo ku jiro damiirkiisu nool yahay weli dhaqdhaqaaqayo waxaan u maleynayaa 20 iyo dhowr sano dagaaladii dhacay dadka qaar intooda badan xataa dareenkii uu ka dhintay Soomaalinimo qofka dareenkiisu nool yahay waxaan ugu baaqayaa inuu ka dhiidhiyo qof waliba inuu isgarab istaago gabadha masaakiinta ee dhibaataysan gabar walba oo Soomaaliyeed oo kufsanay qof walba inuu isgarab istaago dhammaan waxaan idin rajeynayaa Soomaaliya in midnimadeena iyo horumarkeena iyo maslaxadeena aan ka shaqeyno Soomaaliya ha noolaato waxaan Ilaahay ka baryayaa sanadan cusub iyo dawladan cusub ee la soo dooro doono inuu Ilaahay ka dhigo Soomaaliyeed dhibaatada ka saari lahayd midnimo iyo horumar u horseedi lahayd shacabka Soomaaliyeed isjeclaan lahaa qalbiyadooda burcad isku marin lahayd waa walaalkiin Abu Naaji Axmed Cilmi oo idin la Soomaaliya ha noolaato salaamu calaykum waraxmatullaah maanta meel uu ka talinaya gabar Soomaaliyeed ama qof hooyo Soomaaliyeed lagu kufsanayo wallahi waxa ku saaran xaq weyn baa ku saaran waxaan idin sheegayaa dadka geystay dhalinyarada geysatay kufsiga in si degdeg ah cadaalada loo geeyo si degdeg ah meesha ay mudan yihiin sharciga islaamka iyo dastuurka Soomaaliyeed ka qabo ay mudan yihiin in la marsiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inaad ka dhiidhisaan kufsiga dhibaateynta gabdhaha Soomaaliyeed qof waliba oo dareen Soomaalinimo ku jiro damiirkiisu nool yahay weli dhaqdhaqaaqayo waxaan u maleynayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أصحاب تقاليقة ولكن أبو ناجي أحمد علمي ومد الصوماليد أورجيني إنه إلهي دبعت كسارو وحا عاود رينكيغا آد أطابتي دبعت لو جيساني قبر ولا شيء أو كلا صومالية لكفصانيو موغال لغا سيدوبيو صومالية نلوش ميشو أغو حماد أيان مرينا إنان قبله ولا لهينا كفصانو هدنا موغال لغا سيدوبنو وحي إلتها غف وليبا أو درين صومالي مكوشيرو إنو أقدم خانيو وحان إذن ليهي gabdhaheenu waa dhalad dhameys weey gabigood hidahoodi kama dhumin
dhaclihii iyo gareyskii kufsi lagu dhameeyo looga dheelay sharaftii dhowr kaleeta dhalinyaro sow dhuumashaal iyo meher gaaban uma dhigin kolkay dhowr ayaa mood sariir kula dhacleeyaan gabarnimada dhaafshaan dhag furrin kumaysiin sow magacyo dhowrana gabdhaheenna kuma dhicin dhugmalaawayaasha dhibaatada intaa la eg dhaxarsiiyey dumarkii dhimirkii xiskoodii iyo qalbigooda dhinacyada dhooba maa ka fuushoo dhaqdhaqaaq miyuu gabay midka dhaarsan weli ee dhabaha kusii jira horta asaga ayaa dhalay ma dufaan dhacaysaa dharaar qura mar laga helay dhulka muu ka soo baxay sow hooye may dhalin dhabta sow kumay qaban dharab sow kumay hugin caanaheedii muu dhamin gabar sow lamay dhalan iyo guntiinadii ma ay dhigan dhaxalkii awoowiye dhaqankoodii kama tegin kuwa dhoof ku baxay ee dhul shisheeye naga jira dhowr sanaan qurxoon iyo aqoon dhirisi mooye cid dhaliisha lama arag dhowr sanaan qurxoon iyo aqoon dhirisi mooye cid dhaliisha lama arag dhulkii hooyo kuwa jira 20 iyo dhowr sano dhibaatadii dhacaysaba dhaxda sow umay xiran kumay qaadin dhabarkoosoo dhallaan kumay korin xoola nagama ay dhicin dhiig sukeeyo may gelin iyagoon wax noo dhibin ayaa qaar la dhabar jaray kufsi lagu dhameeyo looga dheelay sharaftii dhowr kaleeta dhalinyaro sow dhuumashaal iyo meher gaaban uma dhigin kufsi lagu dhameeyo looga dheelay sharaftii oo miyuusan dhali rabin misna uu dhex rabin wixii dhacay dhaceenee wixii dhiman alloo khayr dhalinteena gabigeed rabowsama ku dhaataan waxaan idin sheegayaa Soomaaliyeed dhibaatada loo geysanayay gabdhaha Soomaaliyeed waxaan la hadlayaa mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ee maamulada Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed dhammaan qof waliba oo mas'uul ah waxaad ogaataa shacabka mas'uulka ah ka tahay ee goobta aad mas'uul ka tahay ka talisid ku hoos nool dhibaatooyinka loo geystay in lagu weydiinayo lagu la xisaabtamayo maalinta aakhiro iyo maalin adduunka in lagu la xisaabtamayo qof waliba oo maanta mas'uul ah